بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله. دمان أصحاب تواني السلام وحنا الله مالي وناكسن دمانتين وحنا الله مالي تويدي وناكسناتو وحرجينا يا دمانتين في عنتهين ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن. maanta waxaan kugu yiri waxaan idin waday aan maanta idin ku tala galay alaab yar waxaan kugu yiri maxaan dhihi karaa ma sha Allah tabaaraka raxmaan yaa oo inaba laga sheekeyn karin dadka qaarna u roon maxaa la dhihi jiray wala roon samahan dumarka dhandhanaanka jecel alaabahoodii maanta laga soo tuuray ma sha Allah tabaaraka raxmaan. alaabta ujeedana saa quruxda badan talo waxay noqon kartaa. waxaan rajeynayaa in videogan ilaa dhamaadka aad nala daawatid si aad uga bogatid sida quruxda badan ee habaysanay maanta cashadan yar ama qadadan yar ama casariyahan yar ee simple-ka waxaad doontid baad ka dhigan kartaa. ma sha Allah tabaaraka raxmaan bisbaaskeedii wadataa waxaan kugu yiri waa isku dhamaataan ku alaabtan ma sha Allah tabaaraka raxmaan. ma sha Allah tabaaraka raxmaan maanta maxay idin waday waxaa idin waday waa calool ya kirisho mirish weeyaan maanta kirisho mirish maanta waxaan kugu yiri ayba ka haysaa dadkii alaabta saa qurux badan maxaan ka habaysanay waa kirisho mirish canjeeradiisa rootigiisa bisbaaskiisa shaaxiisa ma sha Allah tabaaraka raxmaan iyo suubiskiisa oo dhan bay wadataa. ma sha Allah maanta caloosheeniisa inuu habaysanay waxaan u baahanahay hal xabo calool oo kaamil ah ama dhameystiran laba xabo oo ka dhigan karta calooshiisa loo cadeeyay aad iyo aad baan u soo nadiifiyay insha Allah mar kale ayaan soo gelin doonaa sida aan u cadeeyay caloosha iyo waxyaabaha aan ku cadeeyay oo waxay habeeraatay oo kiimika ay waxba toonaan ku darin si natural dabiici ah aan u cadeeyay. ma sha Allah tabaaraka raxmaan caloosha markay bislaato gankeeda uu ka daataa marka hadhow tolo markaad cunaysid sidoo kale waxa kugu noqonaysaa ma ka helisid adana riixadeedu kama tagto intiiba ay galka wadato marka the best way oo u karsatid caloolay hadaad rabtid inaad ma sha Allah tabaaraka raxmaan aad ku raaxaysatid cunitaankeeda waa inaad si heer sare maxay tadoorta marka hore u nadiifsatid. waxaan kugu yiri ma sha Allah tabaaraka raxmaan xiidmihii oo dhan waan ka soo reebnay ilaa mid oo ka dheer oo maaragtay ah baan wax yar kaga daray si ay ugu noqoto maadaama ay ugu noqoto duf oo kale. ma sha Allah tabaaraka raxmaan distiyan soo qaatay dabkan soo saartay waxaan ku soo shubtay ilaa 4 qaando saliid ah waxaan ku soo darsaday xabad basal oo weyn. ma sha Allah basashaas ayaan wax yar ku soo shiilaynaa saliida ma rabna inay naga gaduudato laakiin waxoogaa markay soo bislaato ay soo shamirto ama ay soo arurto waxaan ku darsanaynaa caloosheena. ma sha Allah tabaaraka raxmaan xabada calool aan soo qaadaynaa aan soo habaysanay waa nadiif waxaba yaraatay riixa ama ur ama calool guriga iyo meesha wax ka karinaysa adoo suqaar shiilaya waxba kama duwana waxaba yaraatay ur ah ay leedahay malahan. ma sha Allah tabaaraka raxmaan waxaas oo dhan waa laga habeeyaan qoori malay lama moodo ma sha Allah. ma sha Allah tabaaraka raxmaan saas ayaa maxay todo ugu soo shubanay wax yar ay isku qalaynayna oo isku shiilayna inta ka yara tagay saraxatan intan saa isku soo shuban sir soo noqo aan ciyaalkana 10 waa akhrinaya waxaan ku dabkayga siira dafay marka wax yar bay golden iga noqotay macalish dib ma lahan taasina hooyo waxaan kugu intaas hawlooda isku qabataa Soomahan. ما شاء الله تبارك الرحمن صراحة فيديو سميستيسو easy maahan waxuu ka doonay inaad isaga focus ka siisid mar hadaad tiraahdo laba meelood baan ka shaqeynayna sometimes mistake-yada way iska dhacan karaa lahaada laakiin صراحة aad iyo aad baashan inaba caadi ma ahan wallahi ka daba hadal ma aysan lahayn. ma sha Allah waan isku soo huurinaynaa in yar baan isku soo huurinay golden kii aan sheegay waxa xabada ka dhex muuqata maalish waxaan ku soo daray xabad yaanyo oo weyn oo galka ka soo fiiqay iyo xabad karoota oo si dhudhuuba u soo jiray intaas ayaan hadana ku yara dabooleynaa marka in yar iyaguna maxay tooday isku yara dunto baa waxaan ku darsanaynaa 2 koob oo biyo ah.
maasha allah tabaaraka raxmaan. waxaan kaloo ku darsanaynaa buhaaraadkan ku darsanaa maxay yihiin waa wax allaale waxay aad rabtid. haddaad spicy rabtid waa ku darsanaysaa, haddaad rabtidna saan sameeyay anigu bisbaas baan gooni ula baxay waayo caruur baa ku jirta, caruurta lama siin kara spicy somaha. waxaan ku darsaday hal teaspoonka oo kurkum ahaan curry powder ah, xabad oo jubba ah, waxaan ku darsaday teaspoon oo toonta shiidan ah, waxaan ku darsaday wax yar oo kamsarta shiidan ah, waxaan ku darsaday allahumma salli calaa maxamed wax yar oo milix ah. waxyaalihii aad adigu haysatid oo dhan baad ku darsanaysaa. ana waxyaalahaas ayaan ku darsaday. intaas bayn haddana ku yara shiilaynaa wax yar si ay isku yara dhex gasho. maasha allah tabaaraka raxmaan. waad arkaysiin markaan saa isku yara dhex gelin waxaan soo qaadanaynaa 2 koob oo biyo waan ku shubaynaa. haddii 2 koob kuugu bislaato khayr, haddaanay kuugu bislaanina 1 koob ama 2 koob oo kale intay qaadato ayaad ku daraysaa. saraxatan digsigan oo pressure cooker-ka 25 minutes bay ugu qaadan lahaa haddaan ku kariyo, laakiin anigaan rabin inaan ku kariyo. pressure cooker-ka haddii aad ku kariso daqiiqad buu ku kala tuurayaa. maasha allah 2 koob ee biyaha baynu kusoo shubnay. markaan 2 koob biyaha kusoo shubno waan iskaga tegaynaa, saas ayaan ku ilaaweynaa. ha iska soo karto kuma aanan si qaban, laakiin markii aan 2 koob ku shubay haddana waxaan ku shubay 2 koob oo biyo kale. sidaas maxay ku qabtay 4 koob oo biyo bay ku qabtay. maasha allah tabaaraka raxmaan. markaa ciyaalka yaryar waxaan uga samaystay markay juuskeedu sii yaraaday oo kale baa maraqii ugala baxay in yaro juus aan ugala baxay, intii kalena waan shiilay. maasha allah tabaaraka raxmaan. markii soo gursatay wixii ka isticmaalay intii soo hartay san waaye. maasha allah waxaan ku darsanaynaa xabad basal cad ah oo si warwareega usoo jarnay, iyo baan ku darsanaynaa raqay weeye waxa aan ku daray waa raqay shiidan ama xamar ninba sida u yaqaano ayaan ku darsaday. waxay siinaysaa xamartaasi ama raqigaasi tasti yar oo inaba caadi ahayn. waxaanay noqonaysaa juice yar. maasha allah tabaaraka raxmaan. waxaan kusoo darsay barbarooniga basasha bayn haddana wax yar ku daboolanaa almost inoo jaahis weeye. waa casho yar ama quraac yar oo 1 2 3 ah, waqti badanba ka qaadan mayso. allahuma intaad bahasha nadiifinaysid marka hore mooyaane easy way haddaad barateed u nadiifisidna mar walba waad samaysanaysaa. maasha allah tabaaraka raxmaan. saasi jaahis inoogu tahay. wax yar ka bacdi markay in yar dheecaankeeda kusoo yaraado ayaan soo diyaarsanaynaa. markaan soo diyaarsanay isku soo noqonaynaa. maasha allah tabaaraka raxmaan. alaabteena san quruxda badan bay inoogu soo baxday. maasha allah tabaaraka raxmaan. waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontiin alaabtan aan ku dhahayaa halkay martay ma laga sheekeyn karo. aad iyo aad bay maasha allah ay wanaagsaneed. waxaan ula baxay canjeero maxay toodee caadi aan soo dubtay. canjeerada lama sheer garayn waayo canjeero daan waxyaabaha jirta siyaabo kala duwan canjeerada loo sameystay, laakiin tan waa common canjeeradii all Soomaaliya habeen wal iyo subax walba mostly ay sameystaan. maasha allah tabaaraka raxmaan. qofkii raba rooti buu ku cuni karaa, qofkii raba canjeero ku cuni karaa. anigu qaybna canjeera ula baxay qaybna rootiga islayska waxaan kugu ula baxay. maasha allah tabaaraka raxmaan. yaa iska heli kara anaga waxaan dhahnaa turbo ama dadka qaar waxay dhahaan kirisho mirish, dadka qaar waxay dhahaan calooley, dadka qaar waxay dhahaan calool. intuba isla Soomaaliya ka warama. maasha allah tabaaraka raxmaan. tastigeedana ana idinka hubo aad iyo aad bay u macaanid. maasha allah tabaaraka raxmaan. waxaan rajaynayaa inaad ka heshiin. maxay tooday maasha allah tabaaraka raxmaan. qaybtii aynu u diyaarsanay rootiga islayskana waa tana oo aan dhadhankeeda ana idinka hubo. maasha allah tabaaraka raxmaan aan idinku dhahay. waxaan rajaynayaa videoga inaad ka heshiin oo maaragtay dhammaysatiin oo feedback iga soo siisiin oo maasha allah tabaaraka raxmaan aad tijaabisiin. intan videoga ku xigo aan ku kulmayno waxaan idin leeyahay like-ta iyo share-ta iyo subscribe-ta iyo comment-iga intaba ha ula kala harina. ilaahayna waxaan ka baryayaa intii haysata inuu ilaahay u siyaadiyo, intii aan haysanina allah inuu siiyo. nimco walbana nuqsaantiisa allah inaga hayo, nimcooyinkiisana kuwii ku xamdiya oo allah inaga dhigo. waayo allah isaga ayaa dhahay haddii ay igu shukridaan waan idin siyaadinayaa, haddii ay igu caasidaanna
cadaabkaygu waa daran yahay. Allahuma laka alxamdu walaka ashukru. Fazidna calaa nicamika alkatiira ayaan leenahay. Ilaahu nicmooyinkaaga faraha badan nagu arsaaq oo noo badi. Waxaan idin leeyahay amaano allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.